iyo guud ahaan taariikhdii shalay aan ku sugnay xukuumadihii muxuu ahaay fadhiidka ahaa shacabka Soomaaliyeed wixii maaragtay ay runtii ay badeen anigu khaasatan waxaan deegaanka shaqada ka bilaabay 20 sano kahor baan ka bilaabay waxaan soo joogay markaa waxaan rabaa in yar inaan wax sheegaan markii aan ka bilownay shaqada annagoo qoyska jaamacadda ka soo baxday deegaanka waxaa haystay askartiisiyaad baray deegaanka waxaa haystay nabaddiin deegaanka waxaa haystay deegaanka waxaa haystay Soomaali weyn waxaa xusin mudan annagu xilligaa aan bilownay shaqada in shacabka Soomaaliyeed u baahnaa horumarka lagu qasbi jiray inay heesta Soomaali weyn qaadaan waxay khasbanayeen maalin walba inay calan shantii Soomaaliyeed wixii matalaya inay maalin walba ay qaadaan runtii carruurta yarare Soomaaliyeed oo oomanay horumar iyo waddaniyadii Itoobiyaanimada oo oomanay inay calankii Soomaaliyeed arrintiisii qaadaan runtii waxa weeyaan dowladii fadhiidka ahaa ee deegaanada ka soo jiray annaguna aan runtii ka maragahay waxa shacabka Soomaaliyeed badeen maanta shacabka Soomaaliyeed waxa uu gaaray heer uu ka soo maaragtay waxa la oran jiray waa laga soo doogsaday afkeeda lagu yidhahdo heer maanta shacabka Soomaaliyeed wixii dhibaato jirtay uu ka diga runtii uu ka soo maaragtay doogsaday ayuu runtii gaaray arrintaan waxaa iska hogaaminta maanta jirta ee iska inaan dowladnimo loo baahan yahay